macallinow waxaa igu adag aayadan baa igu adag ku jirta suuratul axzaab bal ii akhrisiya maaragta u fahmo bal aan ka dhageysana macallinka insha allahu tacaala aayadda siduu u akhriyo. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن. macallinow haddaan khaldaneen aayadda qayb ka mid ah si khaldan baad u akhrisay. sheekh baana ka dhageystay qaybtaad khaladay asagoo akhrinayo, bal waxaan isku dayayaa inaan saxo si hadhowdi ardada aan loo barin waxyaabaha khaldan. bal aan isla fiirina insha allahu tacaala macallinka qaybta uu khalday kadibna aan saxna insha allahu tacaala. يبدين عليهن من جلابيبهن. macallinow ku noqo aayadda mar kale sidaas looma akhriye. يبدين عليهن من جلابيبهن. macallinow bini aadan baa tahay, khalad wuu kaa dhici karaa. sida saxda ah ee aayadda loo akhriyo baan akhrinaynaa insha allahu tacaala. bal dhagtaadana si fiican u dhegaysa insha allahu tacaala. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبدين أخرنت صحدة ويدنين يبدين معها. يبدين عليهن من جلابيبهن. الله سبحانه وتعالى هنغييلو كو ورك مقلة مدكيس حلك أهنا كقاطة وولكن سعيد إذن له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.